سلطانكي عثمانيينta ee sanamkii saddexaad ayaa qoraal dhiirigelin ah u diray culimada Azhar iyo ardaydooda baha ugu yeerayo dadka Masar inay la dagaalamaan Faransiiska. Ibrahim Beck ayaa 13 September soo diray dhambaal ku socda culimada Azhar iyo ardaydooda kaas ugu bishaareeynayo inuu ku soo fuleeyahay ciidan uu soo diray suldaanka. Napoleon wuxuu ogaaday xogta timiha kadibna wuxuu toos u aaday guriga Sheikh Saadaad. wuxuu weydiiyay dhambaalka yimid waxa uu ku qornaa balse sheekhu wuxuu ku jawaabay inuu la socon dhambaalka isla goorta waxa soo bixiyay masjidka Azhar dad aad u tiro badan oo ku dhawaaqaya hadallo ka dhan Napoleon kadib markuu arkay dadka yiri maxay sheegayaan waxana looga jawaabay way ku duceynayaan iyadoo la badbaadinayo dadkaas markii ay ku adkaatay shacabka Masar adibkii iyo xadgudubyadii kala duwan ee uu gumaysigu u geysanayay ayaa dadka reer Masar waxa ay bilaabeen in ay isu diyaariyaan sidii ay uga argoosan lahaayeen isla markaana waliba waxa bilowday dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay kaasoo dhacay 12 Oktoobar 1798 ka bilowday agagaarka masjidka Azhar oo saldhigga guud ee kacdoonka iyo waxa la sameeyay guddiga diyaarinta kacdoonka uu Napoleon ku qiyaasay tiradooda 100 nin ugana magac daray guddiga shirqoolka waxaana madax u ah Sheikh Saadaad xubnihiisuna waxay ahaayeen culimadii Azhar marka loo noqdo ilaha taariikhda waxa isku raaceen in ay markaasi ahaayeen sadar xubnood oo ayna ku jirin xubnaha golgolihii ugu saameynta badnaa waxa Azhar isugu yimid dadka cadoon markaasi kacdoonsan oo gaaraya 15,000 oo qof oo isugu jira arday iyo dadka degan Qaahir markii arkeen General Dibwi oo xaakimka Qaahir ay ciidan la socda ay weerar ku qaadeen dilena isaga iyo waliba in badan oo kamid ah ciidankii la socday waxay ku qasbeen meelaha magaalada laga soo galo dilka generaalka Francisco Teresiino jiro kacdo dhaba waxana bilaabay weerar isaga oo dadka afaraya ama kufray xabado aan loo meeldeyn culimadii Azhar ee kamidka ah golihii sameeyay Napoleon ay raadi in ay la kulmaan uu qaabilay isaga oo ku soo dhameeyay si aad markaasi u hooseysa kuna eedeeyay waxa dhacay waxuna ka dalbaday inay raadiyaan hoggaanka kacdoonka dagaalkan joojiyay si magaalada markaasi looga joojiyo buqeynta markii ay aadeen kacdoomayaashii jooga Azhar way diideen soo gala iyaga oo markaasi u arkay socodkeenu ahaa dad markaasi dhexdhexaadina kuwii kacdoonka waday iyo waliba waxa markaasi dhacay in ay sameeyaan shirar iyo waliba wada hadallo Napoleon wuxuu ku qasbay in la doorbido adeegsiga xoog wuxuuna bixiyay amar ah in madaafiic lagu garaaco Azhar iyo xaafadu in markaasi la hareereeyo xogna ku garaan masjidka iyagoo ka dhigtay meel ay fardaha ku xirtaan amradana ku cabaan inta waxa si dheer ah inay boob uga dhaqaaqan talabadaasi waxay xadgudub lagu sameeyay dareenka diineed ee dadka reer Masar dagaalkaasina waxa ku dhintay in ka badan 4,000 oo qof